geesta kale gudoomiyaha garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadani ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi wadani Axmed Muumin Seed ayaa deeq lacageed ugu deeqay ilmo yar oo ku jira cisbitaalka Adna Hospital ee magaalada Hargeysa. ilmaha yar oo qaliin laga sameynayo oogaha hoose deeqdan uu tabarucay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani ahna gudoomiyaha gudida cadaaladda cisbitaal inanka yar wada arkaysan waa lugahaas iyo ku dhashay magaca dhakhtaradu waxay maanta ayaa qaliin lagu sameynaya gabadha yar wadata markaan waxaan go'aansaday in qaliinka iyo sariirta inta hadii ilaahay aan ka bixiyo oo runtii aan ku deeqno wixii markaan ogaanay $500 intaas walaano kugu deeqaya ilaahna waxaan ka rajeynayaa caafimaadkiisa waa nin aad u koray dadka muxsiniinta reer Soomaaliland waxaan leenahay cid caawin karta inay runtii caawiso ilmaha yar ilaahna kugu asturaysa. geesta kale hooyada ilmaha dhashay oo iyadana ka mahad celisay deeqdan lacageed ugu deeqay gudoomiyaha garabka cadaaladda iyo toosinta xisbiga wadani ayaa uga mahad celisay uguna baaqday dadka muxsiniinta reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan dadka u baahan in loo gargaaro. mahadsanyahay Axmed Muumin Seed ilaahay waxaan uga baryayaa halku ka soo saaray inuu wax khayr leh ugu bedelo annagana ilmahayaga caafimaad sareecan oo ku siiyo umraadkeegana aanu ka gaadhno waxa kale ilmo walba hooyo walba waxa jeceshay ilmaheega oo caafimaad qabo cagiisa ku taagan marka insha Allah ilaahay idinkuna waxa noo soo baray laakiin mushkiladda jirta waxa weeyaan cagaha isku laabnaa marka uu dhashay marka muddo handicapta ka shaqeynaysay handicaptuna halka way dhaafin kari weydi marka waxay soo gudbiyeen in qaliin loo sameeyo qaliinkiina runtii waa la awoodi waayay marka mudanaha insha Allah iyo cidii ka gargaartayba waan soo ducaynaynaa inuu ilaahay wax khayr qabo si umraadkoogana waa aqbal laha kuwan iyo kuwa ka sii liitaa jira marka inuu nin waliba wixii uu hayo ka kala ku caawiyo dadku ma kala maarmo sadaqaduna waa sadaqad wax aakhira kaaga sii horeeya wax walba ka wanaagsan marka umadu inay is caawiso isu gargaarto ayaan ka rajaynaynaa.